عبد الله آدن قردشيح oo kamida dhageystayaasha VOA oo wada ka ah mid kamida baabuurta xamuulka qaada iskaga goosha gobolada dalkan Mareykanka ayaa jeclaystay inuu inala wadaago qiso la yaab leh oo qabsatay isagoo ku guda jira safar uu kaga yimi gobolka Tennessee kuna socday gobolka Ohio. Cabdilaahi mar kaliya ayuu ku war helay gabadh gaadhigiisa ku dhex jirta oo dul taagan isagoo xilligaasi highwayga xawaare sare ku socda. bal sheekadaasi oo uu nooga dhacay aniga iyo Maxamuud Ibraahim Cali wuxuu ku bilaabay. waxaa dhacday walaal meel waxaan soo galay truck stop oo shidaalka laga qaato. shidaalkii baan qaatay gudahan galay kafee baan rabay inaan soo qaato. marka gaarigayga gaari u eg baa soo ag istaagay oo baabuurta waaweyn ee xamuulka marka way isu egyihiin gaariga iyo gaarigu way isu egyihiin waa isku company. awal waan loo gareysan jiray arbaabada laakiin maalinka ilaahay amarkii waan ilaaway gudahan galay. gaariga kale marka ninka wata xaaskiisii uu maalinkaas soo kaxeeyay just waa reer dhan oo guuraya waa macnaha ها ده بالكو سرير دنبنا ولا هو اسك غوري عادي موقته واغرت فريجكي iyo microwave-ki cuntada lagu kulleynayna waa ku yaalaan واغرت marka qoyskaasi shaqana waa ku jireen waana safar caadi ah oo isaga jireen haye marka waxaa dhacday ninkii iyo naagtii wixii gudaha galeen ayaga laftirkooda waxbay soo qabsanayeen anna gudahan galay gabadhii uu odaygu qabay baa noogu soo horbaxday macnaha dhinacii baabuurta soo aaday gaarigaygii bay gashay marka oo waxay mooday keedii waxba ma eegin dhinacyada waxba ma eegin sariirtay tagtay sariirtaadii seexatay oo gaariga ku saaray gaarigii bay soo gashay horay sariirtiisa ka tuurtay horay sariirtay tagtay marka baabuurkuna wuxuu leeyahay bahalo u dhaxeeya darawalka iyo sariirta oo daah camal oo u dhaxeeya sariirta iyo steerinkii xaggii gaariga laga wadayay waa taha anigu gaarigaygaan soo galay dhinacna ma eegin furahan ku rogay dawadadaan qabsaday waa garsay iyaduna waxay mooday odaygeedii inuu gaariga soo galay ما بسي والولنبا واقرت تراغلياشو waa taqaanaa telefoon baan iska galay moogta taraagiyadu waa isku soo xirxiraan oo khad lagu sheekaystaa jira واقرت groupkii baan iska wacay oo meeshii baan galay oo sheekan iska qabsaday moogta haye waxaan maqlay cod ah baby what kind of language you talking about today oo gadaal baa ka maqashay xaggii sariirta waxay isiri waniho ma maskaxdaada ma waxaa maqashay ha gaariga inna kuma ogeyn moogta ani kaligay baa wada waata markaasan baba lagu yidhuun waa maxay luqadda ku hadlay what kind of language you talking about today gaariguna de waa guux badan yahay qof telefoon ku jira xaggana cod baan ka maqlay markaan wax yar socday oo sheekadii aan sii waday anigu groupkeygii baan maba ku mashquulinba wixii waxaan isiri waa adiga niyo niyadaada waayaan isiri islaantii oo de sida dadkan u labisane bahalo yaryar halka maaragtay ku wadato oo iyo bahal yar oo gaaban wadata ha waa marka gabadhu waa gabadh cadaana ha waa gabadh cadaan adigu la daada sodomeeye meelahaas ah waa taa waxay soo istaagtay halkan hore ee anigu gaariga aan ka wadayay sariirtii bay ka soo kacday daahina way iska soo furtay ha waa taa gaarigina waa socdaa highwaygu saaran yahay isla markii way ogaatay iyadu inay khaldan tahay haya gaarigii bay eegtay oo sijaayadii aan ku tukanayay iyo wixii gaarigii inuu ahayn way aragtay markaa iyadu way isgaratay markaa waa taa mar alla markay aniga ila hadashay baan yaabay oo naxo fijacay haddaanan naxdin u dhiman maalinkaa nasiib baa wallaahi marka xagga dambuun baad eegtay waxaad aragtay qofku dul taagan hal marun baan saa u eegay islaanti madhaadeer oo dee si u qaawano si fiican u haye anigu dee maba soo qaadan ba waxaana bini aadam ah waxaa isiri jin baa saqafka kore gaariga ka soo galay ma aqaan jin baa soo galay gaariga haye marka gaarigu aad buu u socday dabcan bismillaahi araxmaani araxiim hadduusan gaarigu ila dhicin ba nasiib baan lahaa haye naxdin leh markaasaan wadadii baan ka baxay shoulderkaan istaagay waxaa shoulderka la yidhaahdaa halkan highwayga qarkiisa ahee markay wax kaa xumaadaan la istaago waa garta marka bareegii ma hal maraa wada qabatay macnaha jawaabtaasay ahayd kalaaj iyo geerkii oon foolla ka dhigay wixiiba waa isku daray waa taa wada hal mar gaarigii taayaradii qiiq baa ka kacay qiiq bareegyada isoo uray haya haye still ma believe garaysni waxaan inuu insi yahay taagotaa waa iga soo dababoodayadu waxay rabtaa inay dhahdo qalad baa dhacay raalli ahoobo come down please come down taasi ku haysaa haye dheg uma dhigine waa ka cararay haye ma cuudi bilaysatay intaa cararaysay dee acuudu bileysi ayad kursi yaasiinka waxaan isku darinba male inta qur-aanka ka taqaaniba waad iska dhamaysay alla inta aqaani waan akrinayaysaa anoo wax akrinaya dhinaca ka hordaya wixii anigoo dhan badhiis baan noqday haye barkiibaaba igu qoyeyba haye alla rafaad weyna markaanu iscayrsanayno ku dhawaad 10 daqiiqo
ha waan istaagay naagtii waxaa yidhi horta hay taaban halkaa istaag marka way ii sheegtay waxay tiri qalad baa dhacay gaarigaygii baan mooday khaladkaaga mooye waxaan ku yidhi naftayda horta riski baad gelisay waa dhiman gaara dhahda maanta waa cagacadda masaakiintaydaa markii dambe u nax meeshii baad dib ugu soo noqoteen markaa ay kaa soo raacday meeshii baan dib ugu soo celiyey haa haye saa ninkii baaba daalac u qabsaday naagtii oo anna i qabsadayoo buuq dhaliyey isna waaba hinaasayba uuba hinaasay oo wuxuu leeyahay naagtan adaaba kaxaystayba war waxaan ku yidhi wax ma kuu sheegaa haddadaa inaan booliis waco iyo inaa iga tagtaan oo naagtaada iga kaxaysato wax ka dhexeeya male maxaa dhacay oo booliis wacaysaayo naagtaydii baabad kaxaysatay see booliis wacda adaaba iga khaldane ani gaarigaa la gadoomi gaari naftaydiina maanta halisay gashay hay inaan sharciga ku kala baxno iyo inaad tagtaan oo naagtaada kaxaysato wax ka dhexeeya male naagtii baa la wareystayoo mar alla markaan sheekada uga sheekeyaa la kala daatay hay waaba wax qoslamo iyo wax kalaa la waay hay dadkani maxa inta badan xadgudubka ma jeclo oo khaladka ma jeclo oo ninkii waa i raaligeliyey